السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada daawadayaal markii cuqdad nafsiga qabay cuqdad nafsiga ee Mustafa Cagjarha oo tacadigi ugu weyn ka geystay gobolka Doolo degmada Wardheer qawalayga Daarusalaam tacadigi ugu weyn ka geystay waa qof cuqdad nafsi qaba cuqdad nafsi ilaa hadda oo aan malinaya 5 sano ma aqaan joogo meelahaas iyo ilaa 5 sano oo meesha taagan yahay ma baskoonayo cuqdad nafsi uu qabaa cid uu ka argudanayo iyo cid la dilayo iyo cid uu ilaa xilligan uu mataqaanay daba taagan yahay dad masaakiina oo waxa la waxay galabsadeen jirin oo magaalo dhan oo shidan oo caasimadaha iska shidan oo qabalay dhan oo intaasoo kun baraagood ay ka qodan tahay intaasoo kun guri ay ka dhisan tahay ayuu dhulka la sameeyay hadda la sameeyay intuu cagaf soo qaatay ayuu dhulka la sameeyay marka wali horta yaa waxba yaan wardi ku dalin horta muuqaalka in la yar daawado la yar dheeh guryahanagi waa la dumiyey annaga waa nala jir dilay barkadahanagi waa la dumiyey meeshii aan 35 sano deganayn iyo barkadii 25 sano samaysnaa iyo barkadii markii dhibaatada iyo jabaduu jiray biyaha laga cabi jiray ee weliga lagu noolaan jiray ee weliga naga deganaan jirnay baa nalaga dumiyey oo nalaga soo qaxiyey waxaana soo qaxisay oo na dumisay dawladda Cagjar baana soo qaxisay annagu shacab ismaanaan haysanin marka horna iyada nagu soo duushay oo nalaysay oo waxaana laga soo duulay degmooyinkii gobolka oo rag diray xiran baa nalaayay markii dambana iyada baana soo qaxisay maxaan dhahay to shaqayaal baa naloo adeegsaday ciidan baa naloo adeegsaday farsamo aan garan weynay baa naloo adeegsaday annagu ciidan ma aan ahayn shacab baan ahayn shacabkii baa si fool xun loo galay waana la taarigeeyay waana la kala dibiyay waana la kala gubay guryaha la ka dumiyay intay dhanaaye Mustafa Cagjar waa madaxweynaha deegaanka taariikhda ma aysan dhicin dad sidan oo kale magaalo sidan oo kale u dhisan oo caadi ah oo shidan oo caasimad ah in inta cagaf la soo qaato sagxadda laga dhigo oo dhulka la dhigo 150 baraagood ilaa 130 baraagood oo meesha ka qodan oo biyeysan oo 20 year qaar ku qodnaayeen cagaf inta la soo qaatay in afka ciido loo daro meesha dad ehela oo wada dhashay ayaa iskhilaafay si kale ayaa arrinta loo xalin karay si kale oo fudud ayaa arrinta loo xalin karay ma ahayn dadkan masaakiinta ah ee waxba haysanin ee reer baadiyaha ee qof walba intii yareed ee uu haystay jiingada yar iyo u gashaday barkadaas in sidan loo galo ma aha bini'aadantinimo ma aha dawladnimo ma aha nooc alla nooc ay tahay ma jirto balan ku socon muuqaalkan qadamiye waxa weeyaan 120 guri barkaduhu waxa weeyaan 130 barkadood warqad ay ku wada qoran yihiin haddaad aragto surxaad baa ku dil ilaahay baa noo biyay ilaahay baa magaalada intee in lag baa deganeedeen magaalada waxaan deganahay barkaduhu waxay qoran yihiin 30 sano iyo 25 sano magaaladuna 15 sano way degan tahay uqban xoogaysigeedu ilaa 10 sano way degan tahay faalxibana lagu sameeyay hadda waxa soo dhan boqolka gurisa iyo boqolka guriga baraagood waa la dumiyay boqolkii la dumiyay naafadi baa la dumiyay ushii la dumiyay waxay kala dhaheen Mustafa Cagjar wuxuu wax ka qabanayo oo wax ka qaban lahaa xildhibaanada lagu dilay airportka Garaadwilwaal ee Jigjiga hadduu wax qabanayo wuxuu wax ka qaban lahaa dhalinyarada lagu xasuuqay ee gaalada ku xasuuqaysa ee militariga Itoobiya ay ku xasuuqayaan magaalada Qabri Dahar gudaheeda wuxuu wax ka qaban lahaa shilaabo oo ugu dambeysay dhacdadii ka dhacday gabadhii 5 maalmood ku soo noqonaya ninka militariga oo kalba bastoolad ula soo baxay laga celcelin lahaa ayuu wax ka qaban lahaa Mustafa Cagjar dadka masaakiinta ah inuu xasuuqayo qabaailaadka waxa isku dira waa isaga qabaailaadka waxa isku dira waa isaga hadda halkan waa qawalayga Daarusalaam 100 baraagood 100 guri oo dhisan ayaa la dumiyay 130 baraagood oo inta biyeysan way 130 baraagood baa cagaf inta la soo qaatay yaa afka ciido loo daray dadka haystay waa dad makasa oo reer baadiya oo qof walba intuu haystay halka u galiyay ma Soomaalinima sidaasi ma dawladnima dadkan waa dad ehela si kala loo xalin karay xataa waxa la sameyn karay
انت دتك ماشي دقه اهلك ماشي waa daga iskhilaafsan si kale xataa dib loo waji waayo in dadka ehelku intay tashadaan hantida meesha ka gashay labada dhinacba hantida meesha ka gashay dadka loo celiyo qof walba inta baraagta ka gashay Soomaaliya inta biyaha oo guur meesha kale irto mataqaana tag in la dhahal rabi ya xataa ya xalahayd maxay tahay dawladnimada marka uu sheeganayo Mustafa Cagjar markuu dadkiisa u barakicinayo waa qaxad waa qaxooti meel bay tumayeen meel cil cirsala bay tumayeen balaagtoodii waa la xabaalay guryahoodii waa la dimiyay hantidoodii cagaf baa martay iyagii waa la jirdilay waa kuwan maxay tahay dawladnimada uu sheeganayo Mustafa Cagjar iyo maamulkiisa fadhiidka ah ee dulliga ah ee dadka shacabka iyo masaakiinta uu qoraweyn wax kale oo ay tirayaan meesha ma jirto waa wax cuqdad qaba walaalkay baa la dilay wal ilaa hadda saacadan waa kii hadda wareysiga laga qaaday hadda ma waa kii wareysiga laga qaaday ee uu ka qaaday mataqaana Faarac Abdi Qaadir Geelin Media ma cafin doono qofkii walaalkay ninkii dilay ma cafin doono waa ninka xukunka joogay intuu hadda isagu xukunka joogay intee ruux baa dhimatay walaalkiisoo kale ma aha miya walaaladiisoo kale ma aha miya dadkan dhimanaya dadkan la leynayo walaaladiisoo kale ma aha miya ma geeda ma sarab ayagu maxay yihiin miyaan hooyo dhalin miyaan walaal sidiisoo kale walaala is lahayn ka damqanaya Mustafa Cagjar meeshan dawlad kama soo wada waa maamulka uu meeshan uu dilooday Mustafa Cagjar meeshani waxay dhisan tahay 15 sano oo ay dadku magaalada degan yihiin baraago iyagu waxay degan yihiin dhowr iyo 20 sano qaar baa qodan xilliga jamaadu ay duur ku jirtay baraago ay ka cabi jirtay yaa qayb ah ee jamaaduna alif ay duur ka joogtay baraago ay ka cabi jirtay qayb weeyaan waa kuwan oo dadkii ana garanaya baraagaha garanaya hebel uu kala garanaya Mustafa Cagjar iyo maamulkiisa fadhiidka ay waliba kuwa gobolka jooga ee dulliga iyaguna dulli way kuwa gobolka joogana iyagu qof nool oo damiir leh oo dadkiisa iyo ehelkiisa xalin kara meeshan lama keenaba qof dulli ah oo mayd ah oo nooc ila rabo loo dhaqmo ayaa meeshan ila keensadaan nooc rabana loo istaado nooc rabana loo dansado maxaa dadkan maxay galabsadeen idinka arbooyad ardaysa oo biyaysan oo 5 oo boqol qaad oo biyaha awr kiilo dhaana ku xidhiidhsaday buu leeyahay ninkii meesha ciidanka watay annagu awrna cid kuma aan xidhiidhsanin booyadna ma nalageyn magaalada degan iyo shacab degan baan ahay waanu soo qaxnay idaan ilaahay ahayn oo gargaar ka sugayay marka biyaha la idinka duminayay waa la idin jirdilayay waa la hadda wixii lagu yiri markaan masaajidka la dumiyay barkadahana soo dumiyay anigu idinka baan camal idinka dhigan idinka camal idinka dhigan tibaan ka soo xarnay oo ka soo qaxnay oo halka ka dhimaadnay waan dilanahay gaariyaasha dariiqa isku soo go'ay Mustafa Cagjar halkan dawladnimo kama soo wado wax dawladnimo oo ka soo wado meeshan ma jirto cid ma taqaanaa nool oo wax isku falaysa oo damiir lehna meel uu magacoodo maamulka ma dhigto dad ehela meesha isku dhacay iskhilaafay waligeed bay ehelku isku dhici jireen waa la xalin jiray waa ma taqaanaa waa la dhameyn jiray hadda maxay xaliyeen hadda xilligan hadda la taagan yahay maxay xaliyeen ma ciidan baa meeshan taagnaanaya dadkii soo lama rabo dadkii walaalaha inay bogsadaan soo lama rabo inay bogsadaan ay nabad ku wada noolaadaan heshiiyaan iyagu soo lama rabo hadda ma is heshiinin awood baa la muqoonsaday oo wixii dhan lagu xabaalay ma awood baa taagnaanaysa marka waxaa la rabaa awood lama rabo ee waxaa la rabaa dadku inay iyagu heshiiyaan ehelka wayna heshiin karaan wayna heshiin jireen weliga jaalahood noocan Mustafa Cagjar uu dhaqmayo waa nooc dulnimo ah cid kasta iska celi Mustafa Cagjar iska celiyo qof kasta oo tabartaada iyo awoodda inta adeegsato iska celi Mustafa Cagjar iyo cid uu wataba ay iska celi qof kasta naftu mar un bay naftu xuntu iyo mataqaana idin dhaafta hal iska celi Mustafa Cagjar iyo wixiisan uu wata ee wada fadhiidka hal iska celi wax uu soo wada Mustafa Cagjar ma jiro waa qof cuqdad qaba waa qof buka wax faa'iido ama taqaanay kama soo socoto illa iska celiyo waxaan ka ahayn oo faa'iido u leeyahay ma jirto cid uu meel geystana waa cid dulli oo isaga soo rabo un mataqaana orda kan dulliga ah ee gobolka jooga waa dadka ehelkiisa dadka meesha isku khilaafay isaga xalin karay meeshan waxaa xalin karay oo nabadeeda iyo hawlaheeda dhameyn karay dadkii sadanada ah iyo dadkii ehelka ay meeshan isugu yimid dhagax buur ka imaaday qabridaar ka imaaday shilaabo ka imaaday gaashaamo ka imaaday wardheer ku joogay ku yucub ka imaaday kuwaas xalin karay meeshan oo arintan dhameyn karay dadkan ehelka weligeedna guurti iyo nabadoonna mataqaana markay dadku iskhilaafaan ehelka ayaa dhameyn jiray qofkan qof cuqdad nafsi qaba weeye xalka uu soo gaadhin hadda dadkii un baa la barakiciyay bal dhageysan ninkan miskiinka indhoolka bismillaahir rahmaanir rahiim meeshaan taagnahay waa Farxaan Cabdimiir barkadiisii waxay qodnayd 22 sano waa indhoole awood mu u hayo waa 12 salaan uu ku kor jiray xukuumadda in ilay iyo ka hor uu ku biyo dhaasan jiray
dadku markuu xanuunkii qabtay shumanka loo yaqaano xilliga gurmadka xukuumadda inay ilaahay u hayay uu ku biyo dhaasan jiray halkan baan ugu imaan jiray waa nabadgeliyay ahayd annagoo iska joogna oo iska bariisanayna baa cagaf iyo ciidan iyo xoog baana galay marka hore waxay nagu galeen budh gudun ilaahay kuu soo geliyahayay laharaati maal iyo muruq waxaan ahayna bartaasaa laiskugu geeyey gaadiid fiican ma jiro gaadiidkii iyo maalkii iyo wax allaali iyo wixii magaranaysaa noolaa waa la geliyey fiiri baraagtana waxay qodan tahay nin dhoola iska leh 21 sano ay qodan tahay 21 sano ayay qodan tahay hadda meesha hal la khilaafo meesha hal la burburiye ma nabad baa la gaadhay maxal baa la gaadhay dadkii ehelka ah ee wada dhashay halkaas isku khilaafay ma heshiiyeen waa maya way isu bukaan way isu cadhaysan yihiin haddii la xalliyo dadkii ehelka ay isu bukaan oo iyagu intay heshiiyeen dad walaalo ay isu celfayo ilaa hadda ahaan lahaayeen waa macnaha wax dhan bay ahaan lahayd iyada dadkii muuse heshiinin awooddu muquunsaday dadkii baa la laayay waa la barakiciyey hadduu dawlad yahay oo dad dawladnimo uu sheeganayo waa ka dawladnimo sheeganaya oo madaxweyne sheeganaya hantida iyo baraagaha meesha ku taalla muu dadka wax u celiyo oo dhaho qof walba inta waxaan qaadato tag waxaad tagtaa meeshaad kale ay degayso tag halkan waa ka guura qof walba intana ka gashay meesha ho waxba ma haystaan dhaxanta jiifan hadda barta waxay wadhan yihiin duurka cilcirsanada wax alla waxay haystaan ma jirto mustafa cagshar ha la iska celiyo cuqd nafsi buu qabaa hadduu wax tarayo oo naf leeyahay wuxuu wax ka tari lahaa oo wax ka celin lahaa xildhibaanada lagu leynayo suuqa bartankiisa magaalada jijiga lagu leynayo garaadulwaal lagu dilay xildhibaan juwayris cusbaa lagu dilay garaadulwaal qabri dahar baa hadda dhowr dhalinyaro lagu dilay hadda maal intuu military iska xaraqan iyo xarada ka soo baxay ayuu iska rab dhigay ninkani cuqda nafsi buu qabaa dowladnimo ma soo wado heeraha iyo shacabka iyo waxaan buu ka adag yahay wax mataqaanaa uu keenayo ma jirto ha la iska celiyo isaga iyo wuxuu watay fadhiidka oo dhan ba ha la iska celiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa barnaamijyada noocan waan mustafa cagshar iyo tacdiid u geysanayana waan idinla socodsiin doonaa haddii ilaha yidhaah